qadka Skype-ka ayuu ugu waramay. shirkan waa shir wada tashi ah waxa laga soo saaray mudiyad baa laga soo saaray baaqan ma aha dastuur maaha wax dad lagu fikirka dadka ama maamulka ama wax garadka Puntland sidee wax u arkaan waana go'aamo siyaasi ah waa in dawladda federaalku markaa ay go'aamadaas ay u qaadataa wax ay bulsho meel degan soo saaratay wadankii mataqaanaa isku dhaf ciidan kama jiro isku dhaf dastuur kama jiro isku dhaf waxbarasho kama jiro isku dhaf caafimaad kama jiro isku dhaf amni kama jiro isku dhaf tala kama jirto marka weeye dadka Soomaaliya aqalka u saaxiibka ah in la ogaado war bulshada Soomaaliyeed haddii ay wax tabanayso oo shir isku tashi isugu yimaadeen oo saddex maalmood fadhiyeen oo waxaasoo xaqli ah waxaasoo oday ah waxaasoo garaad ah waxaasoo wasiir dawlad federaal waxaasoo madaxa iyo dawladda Puntland ee maaliyadeedka inta isugu yimaadeen waa in madaxda dawladda gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo dastuur ahaa xukuumaddiisa wasaare khayre waa in ay ka garaabaan arrimahaas saas oo arkaan dadka soo noqon waa tahay laakiin Puntland iyo waliba guud ahaan shirkii wada tashiga ee soo baxay waxa lagu baaqay in arrimaha doorashooyinka sharciyadii la ansixiyay in dib looga laabto iyo waliba in dastuurkana dib loo eego marka arrimahaas misleedahay dawladda federaalku waa ay ka jawaabi doontaa ama ay qaadan doontaa talooyinkaasi waa haddii maskax fiican ay jirto dadka dhageysanaya ama dadka taageersan dawladda nabad iyo nolol waxa wadankii dastuur kama jiro wadankii lacag kama jirto wadankii ciidan isku dhaf kama jiro wadankii waxa ka jira hab process ah oo kumeel gaar looga soo baxay oo dawladda caalamka aqoonsan yahay kadib waxa loo soo gudbaya dawladda dalka markuu madaxweyne Farmaajo qabtay processkii higsiga laga yimid dawladda dalka la yimid wixii waa wada istaagay madaxweyne Farmaajo hadda heshiiskan uu ansixiyay khayraadka iyo heshiiskan dastuur constitutionka xajada doorashooyinka iyo waxan socda wax la tashi laga sameeyay maaha marka haday dadka dega Puntland iyo dawladoodii wax garadkoodu ay leeyihiin ma aqoonsan waa fariin la aqbali karo maadaama wadankii aanu dastuur ka jirin maxkamad dastuuri aanay ka jirin doorasho cod iyo qof aanay ka dhicin dibashiis aanay ka dhicin waa in wixii la tabanay la ogolaado haddaan la ogolaantay Soomaaliya hore u socon mayso waa garta laakiin arrimaha doorashooyinkan oo kale Puntland waxay sheegtay in nidaamka 4.5 iyo qaab deegaan labadood midna inaysan ahayn qaabka loo ansixiyay marka arinta iyadu ma ku muuqato adigu way muuqataa because sharcigan doorashadu waa sharci dhinac kasta loo baxdilay golaha wasiiradu ee xukuumadda khayre waxay soo saareen doorasho xisbi ah baarlamaanku guddigu u magacaabay waxay soo saareen doorasho 4.5 ah haddana aqalka sare tagay wax kale ku soo daray isaguna ah mataqaana qaabka aqalka sare iyo ah mataqaana loo qeybgalayo marka markii hore waxay ahayd bal in la tashi laga sameeyo oo baarlamaanka Puntland lagala tashto xukuumadda Puntland lagala tashto Jubbaland lagala tashto Koonfurta lagala tashto guddi farsamada magacaabo ana qaabkeeda muuqata waa garta laakiin dadka dawladda federaalka taageero oo kale waxay tigeeda ay ugu jiraan xubno iyagu matalaya oo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo waliba dawlad goboleedyada oo dhan ay iyaguna ansixiyeen marka inay ka soo horjeesato Puntland ama dawlad goboleed kale in arrimahan uu ka soo horjeesto doorashooyinka ee la ansixiyay ma waxay kula muuqataa wax daw ah ama ay ku gar heli karaan marka hore ma aha waxba la diiday wadanka waxa weeye 8 February wixii ka dib 2012 Soomaaliya waxa la sugayay dawladda dalka oo uu ka koobnaa dawladda dastuurka meel aadan laba hayo waxay ahayd in isku dhafka ciidanka la sameeyo isku dhaf ciidan oo Puntland oo Soomaaliya ka dhaxeeya Puntland ma joogo isku dhaf waxbarasho in la sameeyo macallimiinta Puntland mushaarkooda meel la saaro systemkooda aqoonta meel la saaro isku dhaf muxuu ahaa tirakood guud la sameeyo wadanku wuxuu haday inuu meel u soo wadanku taagan yahay wadanka duu taagan yahay min xilkiisa ilaa shalay wax naga gelin Soomaaliya wala Hirshabelle wala Koonfur Galbeed wala Jubbaland wala gobolka Banaadir dadka Soomaaliya 3 sano gudub way taagan yihiin sanad baa dhiban December baarlamaanka hadda jira kaga eegay tobnaad marka weeye haddii Ilaahay laga baqayo wadanka wuxuu u baahan yahay dad maskax fiican in Puntland ay maskax fiican la timaado
dowladda federaalka madaxdooda maskax fiican la timaado dadka Soomaali maskax fiican la yimaadaan waxaan Soomaali baa ay ka dhaxaysaa kama dhaxayso amisom kama dhaxayso igad kama dhaxayso afaka warga kama dhaxayso abiy ahmed marka weeye wadanku sidii u taagay waa la socotay ila saxaafadda xorta ahayd culays baa soo koray wadankii dhaqaale culays baa soo koray wadankii amniga culays baa soo koray marka hadda dagaalkii Puntland ay ku jirto xoogaga Daesh iyo al-Shabaab ama ku jirto dadka ma taqaanaa dhibaatada ka wada deegaamada wax dowladda federaalka ay u soo dirto tabaruc ma jirto waxa ka socda Jubbaland wax tabaruc ma jirto marka wadanku uu kala daatay ma taas waa been baa loo karnaa marka wadanku wuxuu u baahan yahay in meel la isugu wada yimaado oo wax la isla garto haddii la leeyahay annakaan niri wadanku de 30 sanadood intaasoo nidaam baa soo maray wadanku meel qatar buu sii galaya marka dadka dhageystayaasha ay fahmaan Puntland 1990 dadkii cajaladii recording ka yaala 98 markii lagu dhawaaqay sameynta Puntland 8 sanadood 91 ilaa 98 7 sanadood Puntland jahwareed ku jirtay ama aan noqdaan gobolada waqooyi baraha loogu yeero ama hogaanka SDF loogu yeero way warartay dadka reer Puntland go'aan waxay ku gaareen shir beeleed ama shir bulshada ee maamul istaan in istisna waxbarasho samaysteen inta looga daba yimaad in laga burburiyo oo la yiraahdo anaka iga burburinayna oo baarlamaankiina baan burburinayna oo constitutionkiina baan burburinayna shirka wada tashiga waxa weeye waa shir ilaalinaya inta yar ee Puntland ay dhisatay wax waa inta way waxay Puntland ilaalinayso waa hadda ku inay fahmaan inta Puntland meel weerar kuma aha dadna ma diidana war inta yar Soomaali kana haday Soomaali nooga shana waa welcome hadana la ogolayna waxa yar aniga burburinay aqoonyahan caalim ayuu kaasi ahaa